Asalaamu calaykum. Hadda kadib saan u samayso 4 geed. 4 geed waxaad ka helaysaa marka ugu horeysa 2 faa'iido. Faa'iidada koobaad waxa weeyaan waa faa'iido caafimaad. Faa'iidada labaadna waxa weeyaan faa'iido udgooniin iyo carfin ay cuntada ku carfinayaan kuna macaaneynayaan. Marka haddii aynu guda galno faa'iidada caafimaadka. Faa'iidada caafimaadka waxaan kusoo koobaynaa 4 qodob baan kusoo koobaynaa. Geedka koobaad mintiga la yiraahdo waxaan kusoo koobaynaa 2 faa'iido kaliya ayaan ka sheegaynaa. Waxa weeyaan labadiisa faa'iido. Faa'iidada koobaad waa liddi wuxuu ka yahay bakteeriyada iyo xasaasiyadda. Faa'iidada labaadna waa waxa uu wanaajiyaa ilkaha iyo ciridka. Rosemary geedka la yiraahdo faa'iidadiisa koobaad wuxuu ka caawinayaa inuu hoos u dhigo khatarta caabuqa infekshanka. Faa'iidadiisa labaadna wuxuu ka caawinayaa inuu difaaca jidhka kor u kiciyo si uu la dagaalamo jidhka iyo wixii soo gala. Geedka saddexaad waa parsley. Geedkaasi waxa uu yareeyaa bararka dhiigkarka waxaana ku jira vitamin K kaasoo ku leh caafimaadka lafaha. Geedka afraadna waxaa la yiraahdaa amaranth leaves and stem. Kaas isaguna wuxuu ka caawinayaa oo waxa uu yareynayaa subagga xumaaday ee jidhka ku jira. Kuwaas waxay ahaayeen faa'iidooyinkii ay lahaayeen geeduhu. 4 geed baa halkaas ayaynu iskugu geynaynaa. Waxaad marka hore soo qaadanaysaa blenderka ama waxaad wax ku ridqato. Kadibna 4 geedba halkaas ayaad isugu soo gogeysanaysaa. Markaad si fiican u soo dhaqdo oo aad soo maydho. Kadibna waxaad ku soo darsanaysaa saliid. Saliiduna adiga ayay kugu xiran tahay inta aad u baahan tahay. Laakiin waa inaanad ka badin oo aad saliidda u qiyaastaa ama aad leekisiisaa. Hadday ka badato waxaa laga yaabaa inay dusha ka soo marto oo sidii la doonayo ku noqon waayo. Saasaa markaan kusoo ridqaynaa inagaas kusoo diyaarinay. Mishiinkii baan hadda geliyay. Waan soo ridqaynaa xoogaa erbusoo mishiinka kusoo jiraya ilaa intuu ka ridqamayo ee uu ka noqonayo mid budaa. Hadda saas ayuu noogu soo baxay. Maasha Allah tabaaraka raxmaan. Xaq Allahu akbar. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan rasuulullah. Salaati casar baa la eedaamay. Marka saas ayuu noogu soo baxay. Maasha Allah tabaaraka raxmaan. Ka faa'iidaysi waxaan.